waxaan fahmi laahay inan maxramkeedii la joogta ma lala saaxiibi karaa sidee bay u taalaa taas maxramku se muxuu ahaa haddii la saaxiibayo inantiisa xaguu ka socdaa isagu saaxiibtinimase nin iyo gabadh ajnabiya ma dhex mari kartaa su'aashu se sidee u socotaa intaasoo su'aalaaba dee anna waan soo celiye ka jawaaba nin iyo gabadh way saaxiibi karaan haa hayaa waxa la leeyahay war wadaadku waxa uu ka miisay nin sheekaba wuxuu yiri wuxuu u khudbadaynayo u akhriyay lecture u jeedinay dhalinyaradeenan ku nool dibadaha ee muslimka ah ayuu u jeedinayay lecture marka waxay ku adadkaayeen su'aalo badan ka weydiinayeen nin iyo saaxiibtinimada ee waxa la yiraahdaa saaxiibka ayaa aad ugu badan wadamada gaalada kaasay aad ugu celcelinayeen markaasuu dhacaa waxaan idin hayaa saaxiibtinimadii oo shariicadu banaysay markaasay ilaahay waa warba soo kordhay wax wanaagsan baad caawa sheegtay waaye noo sheeg asuu waa fiicantay sharcigu uu ogol yahay sharti yar un baad sameynaysaa shardiga yar waa maxay qabiltu nikaaxa un baad oranaysaa waxaad oranaysaa oo kaliya heblaaye guurkeedii waan aqbalay waalidkeeda intaad u tagtun baad leedahay ii guuri kadibna wuxuu koray waan ku guuriyay adiguna wuxuuna leedahay guurkeeda waan aqbalay kelmadaas oo kaliya baad oranaysaa saaxiibtinimada way banaantay iskala saaxiib jaamacadda marka dhiganaysan iskuulka marka dhiganaysan guriga marka joogtaanba marka sayra that is easy ma intaas oo kaliya oo shardiga yar baa ku xidhan ha kaas hada uu fudud yahay si yar buu sheekhi u liqsiyay kaniinkii khayrka lahaa marka gabadh waad la saaxiibi kartaa maxramkeedu uu la joogo markaad ka mehersato haddaanad ka mehersaninna maxaa iskiin ag dhigaya waa dab iyo gaas miyaa la isu dhaweeyaa soo isku qarxi maayaan dab iyo gaas haddii la isu dhaweeyo nin iyo gabadh kale ajnabi ahoon isu mehersanayn maxaa la iskaga dhaweynayaa waxaa ka soo baxaya wixii aynu ka warramaynay ee ceebta ku ahaa dalkeenna iyo dadkeennaba markaa saaxiibtinimadaasi ma jirtee labada qof guur way ka wada hadli karaan aadaabtii sharciga iyagoo ilaalinaya way wada hadli karaan waana is arki karaan laakiin is arag dheer oo la istaawanaya sida muraayada iyo isdhagaysi iyo sheeko badan oo la ismacaansanayo hadalka oo telefoonkii la iska macaansanayo iyo wada bixid badan oo la soo wada cashaynayo la wada dalxiisayo waxaas xagga shariicada xaraan weeye xalaal ma saadaradeed saaxiibtinimada kaliya aynu haynaa ee aynu ku hayno nusuusta waa taa weeye meherka ay isugu imanayaan nin iyo gabadh kale ajnabi wallahu a'lam